dhammaan dadka London ka socda waxaan odhan lahaa thank you very much for organizing this beautiful night. Without further ado, ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to thank our beloved President, His Excellency, Mr. Ismail Omar Guelleh. This is a great honor to have you, Mr. President, in our second home we call London. Please welcome. Ladies and gentlemen, let's welcome the President. I'd like to thank everyone who actually worked. Thank you very much for making this night a reality. I'd like to say thanks, a special thanks to Nima Ali Al-Makari for your hard work and your dedication. Thank you very much. There's no place like home, and there's no language like your mother tongue. So I'm going to transition to Somali. Thank you very much. I was out there with Hello Bay and just getting from the joke. Where are they? Wish I do the joke. I'm sure enough. Where can I get from there? So I'm going to play the Olympic in over the NATO. Happy over the NATO. Maybe over the NATO. The highway and don't go back to that. I think I've been showing that a lot of money. In the kind of egg. You are wrong. Dalku nin kaliya male dadka dhan buu ka dhaxeeyaa marka waxa weeyaan meel kasta ay joogtiin amal kasta oo qabanaysiin inaad positive noqotiin hard work dedication waa in markaa laga arkaa Soomaalida waxay tiraahdaa waraabiya cad ku rar haddaad markaa ininkiiba aad qabsanaysiin oo dalkii caayaysiin that's not a positive attitude. For a good positive attitude to the so we have to be positive. واحد كشغالين ماشي عادتي إذا لا تغميسين وإلى positive attitude and hard work ولا يرانا. That will reflect our country. أنا بكسر راجع وسوق هو بيا. فما له حكم عمله ني ما يقدر هاي الدين ماله. تركين هاي لوبنا. وحاولنا لها نبى لقيت وسعيد باقر إيه توري دافعني دافع وأنا كمبيوتر أوضك وحاول يجينا صعد إيه وكمان حق الحلقة كله يقص صعد وكمان ولا كانوا هراين ما هنا ولا كلام Monsieur le Président, وصوص عنا هدينا سفر إسحاق على قطعين أنا كوس هذه نسيت لا صوص عنا. Thank you very much for listening. وعنيك نيتي بنيا هي اللي هو عايز سميرة. السلام عليكم. مركب كوبات هو ناكسن ladies and gentlemen. أنا ما تعالينا يوميا النهضة. عن ملية هي بدك سلوك واحد بدن وسمارتي وسمية إذا كان محيها لكن ما سنتي بقول نمعة عبد الرحمن يلا ما بدك كسوقي قلي يدك ما سلوك واحد بدك كوبا حد إلهي بعلى نسبة كأن حركة هذا ريدو بتنا هاي هاي سومالي حنا هاي سومالي لان تبع وحان وصل وين إن سلوك واحد من الحوين هايجا من استردا delegation كلا سقطها لما شركة ريدو بتي تجني الجسم واحد بدنا نقول لها ما توقت منه مسامح لي كل دب من بار بينها الله نيكولا كنا مارك سفيع متصدي وحيا لها وودك كنا جسويو إن المركز ودك كان يقولون ودك محو ناقة ماهن وودك محانو قبلني يا باشا تعالى تصير حوين entrepreneur إنه نقطة وما ذاك ودك الله شقيه وودك أنت كاسو سيفي تدول له نقطة ودك لماذا ذاك إنه برا واجب ودك وارجع كاسو بيو
waxaad ka sugtid ma ahina waxna u dhexsid wadanka oo raadid wadana waad maasan tahay dhulow waad maasan tahay oo loo abaal gareeyo dadka bini'aadanka sida iskalaba waxay isku qabtaan waxay isku diidaan meeska cunto lagu cunay waa in wax la isku weydaarsado fikrad aragti difference-ka dadka u dhaxeeya waa in meeska soo dul saaran qofku waxa uu doonaa ka yimaado wuxuu doonaa insanaado laakiinse waa inaad agree to disagree in meeska lagu dul yimaado oo maaragtay lagu wada sheekaysto dhammaan reer Djibouti anigoo inta ku soo dhaweeya waxaan leeyahay habeen wanaagsan It's very difficult to follow my brother who just spoken now with the gabay and the poems that I actually throw away. So I would like to be very humble. I would like to personally welcome on behalf of the Djibouti diaspora in London and also probably around the world who are present here tonight, the President of the Republic of Djibouti, Mr. Ismail Omar Guelleh. My salutation and gratitude to the dignitaries who are present beside the President of the Republic, Ismail Omar Guelleh, and also the ambassadors who are spread around the room tonight. I would just like to pay tribute to the President of the Republic, Ismail Omar Guelleh, to the effort that he actually is trying to bring about in the stability of our neighbors in Somalia. Hereafter because he's such hard-working person who actually tried to bring about peace. And also it is the main point that is here tonight with us and also in the United Kingdom. Mr. President Ismail Omar Guelleh, I would like to thank you for your relentless efforts to bring about the peace in Somalia and also your effort to keep the stability and the peace in our homeland, which is Djibouti. Finally, I hope you enjoy your stay tonight. Also, you stay during the few days that you're here in the United Kingdom. I hope that you enjoy. And I also like, may Allah help you fulfill your ambition and also your objective that you want to bring to the table during the summit and the conference in London. And may Allah give you the objective that you want to achieve. Ameen. Bring about the intention basically about what we're doing here. We are basically very young people. Yeah, okay. We like to tell you that we're actually doing hard and also reading about the effort and also we are doing the community services in the United Kingdom, also especially in London. We gather services for our children in the country and also we would like to bring about kids who are actually willing to invest and also try to do something good in the homeland. Thank you very much for that. aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantihiin ciidankana waxa aan ku socday waa madaxweynaha ku soo dhawow mudane madaxweyne الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maxaan ku horeynayaa waxa weeyaan mahad kal iyo laabka soo dooday aan u jeedinayo walaalahay reer Djibouti ee arrinkani ama caawa xafladani wanaaggeega cazamadeeda iyo farxadeedaba soo diyaarshay fanaaniinta aan si gaar iskugu xidhannahay qaarkoodna halgan dheer aan soo wada galnay dadka abaabulkiisa iyo fanka dadka barashadiisa inaan waddo dheer isla soo marnay baa ku jirta ayagana waan u mahadnaqayaa حقيقة كم هرة في فبراير بان هالكن لمن بهاي حفلة سنة وكلا أنا ونودي أرسم بهاي
وكسو غير قلني أدفعي يعني وخشوع فرصة كستي أو إيش ورودينا ذات كي قال كل منا كما حفصامو كما مقني هو كستون لي هنا نلجو هاي يراتي وقت لكن إن نلجو بنجاهل dhalinyarada halkeer yani iyaguna nagu soo dhaweeyeen dalkani wax ku bartay positive way la noqday dalka maxaan u qabtaa intaanan noqon dalku muxuu ay qabtay fikir John Kennedy ka yimid inuu ahaa bilowgii dadkuna aad bay haddii kelimadaasi ay qalbiga dadka gasho Afrika sidan ma ahaateena horey u socon lahayd dowladda United Kingdomna inaan mahadnaq u soo jeediyo ayaan doonaya waayo waxay idin siisay fursad aad waddanka ku degtaan aad ka shaqaysataan wax ku barataan isku dawgeysaan dalkiinnii idinka oo iskaga xidhan mar kastana warka haya intaas wax weyn baan yaan u tirsanaynaa dowladda United Kingdom dalku inuu lama huraan yahayna waa garanaysaan waxa uu dhalintu kolka ay wax barato aad ku tacabteen aad wax barteen meel gaarsiiseen xoogooga dalka ayaa u baahan dalkan ay la joogaanna inay wax ka qabtaan ay wax ka qabsadaanna waxa weeyaan faa'iido xogaana inay dalkoogii u soo hooyaanna kaba sii fiican wadada dheer ee dalka lagu horumarinayo dhinaca bulsho dhinaca dhaqaale dhinaca waxbarasho intaba waxa loo waday waa dadka weyn dadka dalkiisa wax uga fiican ma jiro waxaan se kolka anigu aan idinku bogaadinayaa waxa weeyaan in sida quruxda badan leh idinku u wada fadhidaan inta halkan soo gaadhay maanta iyo inta maqanba waxaan filayaa inay intan aad ka badan tihiin intiina joogta United Kingdom in magaranaysaa ay aad midnimada inaad ilaalisaan dalbida hata inaad ka timaadeen aad garataan dalkaasi ku idin jecel oo idin sugaya inuu yahay inaad garataan wax walba aad ku horeysiisaan jacaylka dalkiina midnimadiina inaad ilaalisaan oo calanka iyo dalkaasi uu yahay ka idin mideeyey inaad garataan maxaa yeelay wejiga wanaagsan iyo positive-ka uu sheegayay inankii goortii dhowed hadlayay dalka aad joogtaani wuxuu u arkaa yani mujtamac ama bulsho wanaagsan caafimaad qabta positive ah oo dhanka wanaagsan mar walba wax ka aragta asaguna wax kolka uu arko dad anshaxoogu fiican yahay aadaabtoodu ay fiican tahay waxqabadkoogu u fiican yahay dal jacaylkoogu u fiican yahay dalka ay joogaan xurmaynta ay xurmaynayaan ay tahay mid toosan markaas ayuu qiimo siinayaa annaguna kolka aan la kulanno
aad baan ugu khushucnaa sida ay warka ay ka keenayaan iyo xaflad qiimo leh ayaa halkan ku qabateen caado ayaad caadaysateen aniguna shakhsiyan aad baan ugu faraxsanahay aadna waalidinku mahadnaqay marka walaalayaal aad u mahadsantihiin xafladeenniina halkii ahaydin ka socoto wixii aad waddankeennii inuu horumarkiisa aad doonaysaan waan garanaya annaguna wixii wax bartay ama yacni maalgashi iyo waxbaan haynaa leh ama baahi ay u qabaan inay yacni waddankii degaan waxalba waxay u baahan yihiin anigaa dusha saaran inaad dadaalkiinana sii wadaan midnimadiinana sii adkaysaan baan idinku bogaadinayaa dalkeenna xabiibka ehe ha noolaado midnimadeennu ha noolaato asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu صدق والله عيال أبويا حبيبي
Thank you.